adigu xaruntiinu samaysay waxa kulay isaga waxba ka soo qaadanaysaan oo research wuxuu meel badan buu idin la gelayaa marka maxay idin maxsuulka idin soo baxay muxuu yahay 574 geed ayaanu qornay geedka markaa waxaanu qoranay manfaca uu leeyahay dad iyo xoolo intaasoo markaasi geed markaanu baaraynay waxaanu eeganay maxidka ay Soomaalidu isticmaashaa mise caleenta isticmaashaa mise waxay isticmaashaa luuxa iyo lafta geedkaasi galowlka ama raado sogsogta baan raado labada geed aynu sheegno mid kamid ah hadaa soo qaato oo adabka geliso isaga oo qoyan mid buu xaga daba ka sii daaya cas qayb kala midaasi hadii aad ururiso dawo ma noqonaya shay kale noqonaya ma jecel inaan waxyaalaha ay khatarta oo kale aan soo qaato laakiin qaybta dawada xaga dawadan ka maraya dirteena 412 kamidi oo qaybtaanu anagu research aanu sameynaa geed yarta aynu qaadan taartii ba kamida oo leeyahay waxa kamida waxa ruwaalisa waxa leeyahay waa geed gaabki waa garta aan mileeyay ba kamida waa si sanaal oo waqtiyada guga oo kaliya ay baxaano jiilaalkii ba jira inta soo taarto ay iyadu dhaafto laakiin hadana geedaha yar badankoodu waqtiyada si sanaalka weeyar oo waqtiyada waxay baxaan oo kaliya roob daayo qoloyinkii aan wax ka qoranay xagga dhirta aan dhibaato wada naga qabsatay siibaaniga qabsatay waayo qofka dawada yaqaan iyo geedka yaqaan ku sheegi maayo ilaa aad muddo daba socoto geedkii ku sheegi maayo hadduu geedkii ku sheegana qaabkii loo isticmaalay ee Soomaalidu isticmaalay